السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيري كلي وجدان أرنت ماشي تعالوا أما خسارة كإماتة لك هذا ماشي تاعهم ورر هندارو يمكن أيها قبضة كل الحمد لله وحنا مع إلهي لكن وحوين أول سكيك جرجارو هندارو هذا نهاي أما دفيش زنجيلو أنا هاي لكن جاري الآن معلن وعاد قلت جد الآن وحلاته سنة والبا ضد صوت دورنا ضد سجون ما لقى هذا ما لقنتي لما هردها يا وحبك من نقال صابته ماشي واحد قصاروا ماتت والأركزين بعشرة أرنت وايد دافته وعجرة تبيج زنجيلو المه باهي وضمان هاي ما مو يركض زنجيلو إلا مثلاً المه راشين أو سوق قادين راشين كأسقى المه واقع قصارة دقيقة واحد جاري مرها باهي إن شاء الله لو قصوا تيجي تبعته ده هسته ويكون سيد قليسي وقع كل يوم جدا أرنت ماشي تعالوا سجود ده كان أصلا بصوت دور تميل وكلام من نقانو جاري نحن ملاين زندارو كويس أنت سجاري أتاعي جاري الآن معيلي جد الآن عايشة هذه أما كونسل هذا أما إبيه هذا ضد كم واحد أنا صوت دورنا سجود أرنتن سنة تجفنا ملا هذين من نقانو تبعت هذا صاحيست وأنا دلوقتي أوكي وهالكم ومجالات هندارو تدوينه دلوقتي هايسو halkan ay taagan yihiin baabuurtii dadweynihii wadada ay ku hakadeen xaafadihii magaaladii biyaha qaadeen halkan aad arki u jeedaan waa kuwan dadweynihii taagan odayaashii caruurtii dumarkii dhammaan ayay dhibaatadii nigu hayso halkan ka waran bal ka warbixi andaana waxaan ugu haystaa oo dhiba hor jidkaan oo gooy marka had gaar la'aan ma hasa marka booshadii ilmihii loo soo qaaday bes loo soo marin lahay ilaa singaa'in waa gooy هذا أركيس الدنيا تلعب مركب وحرمنا إمبي كونسول دفنا سنة نكل عالم كرو أنا سأعود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلكم أندارو لوكيشن ماشي أنا تاجنا حتى وعملت لينا القبيع مقعي علينا عبد الله برالي maamooyinkan meeshan waxay u imaadeen waxay ka soo sarfeen Sangailu ilaa toka ijaara ay u qaanteen raashin ay ilmaha tunka ugu soo qaadayeen raashinka asaga ay soo qaadeen waka gartaasaas maraha laga hayo hadda haweenkina waa kuwa dibkaas ka badan ma hayno gaari loo qaylistay gaarigana waka asagana waa kaga inta lagu soo gaday laba jibaarka ma geli haduu uu kaco hadii kale kan kaco wax kale faa'iido ka jiro meeshan malaha أنا كمان كنت دوبش أنا أقول لك أنا هردة أنا أقول لك هذا هاي قفنا هذا سنة هذا MCMB أنا كمان نقانو ماشي أي صريح هذا تعلق مركا ما بقى مرة اللي حاجات بس كده ولا عنده ما أنا أرق مركا عرفت أساجرت الدولة ده هردة أنا كل شيء دوسي نقول عاون كرا نقول عاون أنا أقول فاهمناي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاي شو كبير هذا هاي معلم مدير قلنا حرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة وبعد ماشي أنا أركيسان وأضرب لها الجوية كتر تلفزيون سنجايلو دار اللوكيشن ومدى عقبدوين فربنا هسا دباتوين وحاسات ujeedaan waa booshada laga soo qaaday jaaraya qabtaas oo la wada ilmaha singeelay la lagu caawinayo dadka waan qumiyaya ma shaqo farabadana jirta dadka madaxda la soo doortay ummadan kulay ma garanay rabbi subhanahu wa ta'ala quraan wuxuu ku dhaynaa la yamrukum an tu'addu al-amanat ila ahliha usiga waa amaana shacabka lagu shaqeeyo shacabka looma shaqeeyo wadooyinka way go'an yihiin meel la maro malaha dhibaato farabadan yaa jiraan marka dadka madaxda la soo doortay ilaahay abuurha ka baqaan shacabka ay kursigaas ay ku fuuleen ha ilaaliyaan ama dhibaatada haysato wadalaanta haysato ha ilaaliyaan
marka dhibaatada hadda maanta taagan meeshan keenta waxa way in meeshan la imaado oo dadka meelaha kale ka imaadeen oo socdo inaan soo caawino dadka soo gudbino wadooyinka meeshan adablaha gabaya Soomaaliya oo arkaysan ilaa magaalada way galeen biyaha dhibaatada fara badan caqabadaha fara badan hadda na soo bixisay inaan dadka caawino dadka musaafirka ah oo soo gudbay inaan gudbino biyaha kiya masangaalo ka imaadeen la soo gudbiyo kii inta u jeeday la gudbiyo ilaa ummadda masaayin raashinka ma sokeeyo wala dhumahay ummadda dhumahay marka shacabka waxa loo baahan yahay inay mataqaana dadka madaxda laga soo doortay wadankan wadooyinka shaqo laga mahayo dib laga maha muxuu ahay dhibaato fara badan ay iska jirtaa meeshii lagu ilooyay waan garan lahay kursigan shacabkaas iska leh waa amaana mataqaana waxa la rabaa in loogu adeego shacabka oo wada wax lagu qabto marka ummadda Soomaaliyeed maxaa asagana baaqan u diraya inay ogaadaan oo ka saaraan meesha wax qabiil ah daraad kursi maxaa nagu soo galay meeshan inaan dad doorano ummadii aan dooranaynin ma nin kasta aruurtiisa boojadiisa buhaastaa Nairobi oo iska degan yahay dhibaatadii waxay haystaa shacabka anaga in haysaa maanta ha ogaadaan markaas nin kasta shacabka bulshada Soomaaliyeed oo meesha markii kuraha la riday qabiil wax la in iska ilaaliyo oo la fiiriyo ummadda ninka wax u galay la doorto dhibaato fara badan ummadda haysat wax ogna malaha wax noo maqana malaha marka hadda meesha waxaan u imaanay waxa u jeedaan waxaas waa booshada loo waday ka taysan gaari la luuqo gaariga waa u jeedaan marka dhibaatadaas aan haysataa waxaan dhihi lahaa marka wadooyinka ummadda loo hagaajiyo wabillahi tawfiiq sallallahu alayhi wa sallam